Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah aadan madoobe oo maanta kulan la qaatay xasan sheekh maxamuud maxay ka wada hadleen barnaamijkeena xulashada ayaa ku daawan doontaan sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee magaalada baydhabo iyo weliba xiisad ka taagan duleedka magaalada baydhabo qodobadaas iyo qodobo kale xiise leh ayaan idinku haynaa barnaamijkeena xulashada wararka aan ku bilownay sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee xasan sheekh maxamuud iyagoo ka wada hadlay sidii meesha looga saari lahaa ciidamada cabdicasiis xasan maxamed dadka gareen ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo labada mas-uul ayaa waxaa la isla soo qaaday culayska saaran magaalada baydhabo ee dhinaca amniga ah iyo sidii looga saari lahaa ama ciidamadaasi looga durki lahaa waxaana la isku raacay in sida ugu dhaqsaha badan ay ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ku sugan koonfur galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo ay sameeyaan howlgallo xoogan oo wax looga qabanayo ama dib loogu riixayo ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen aadan madoobe oo shalay uu tagay magaalada Muqdisho una tagay culayska siyaasadeed iyo midka amni ee ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay ku hayaan magaalada Baydhabo ayaa sheegay in waxa ugu badan ee culayska ku haya uu yahay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ciidamadiisa ciidankii dadweynihii iyo bulshadii reer koonfur galbeedna maalin walba si tarab ah ay uga baxayaan deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed Soomaaliya taasi oo uu sheegay in ay ku tahay caqabada ugu weyn ee hadda uu wajahayo maadaama isaga hadda loo doortay hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya hase ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay oo ku taliyay in sida ugu dhaqsaha badan ciidan iyo saanad military la soo gaarsiin doono oo dowladda federaalka Soomaaliya ay gaarsiin doonto Cabdicasiis iyo ciidamada taabacsan ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo sida ugu dhaqsaha badan looga saari doono goobaha ay ku sugan yihiin ee gabaadka u ah ee ka soo weerarayaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed Soomaaliya labada mas'uul ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ka wada hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Baydhabo iyo weliba sida loo adkeyn karo amniga iyo nabadgelyada magaalada oo runtii aan hadda caga badan ku imankana Baydhabo ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa iyagu dhooda waxaa la sheegayaa inay si toos ah ay saacadaha soo socda ay duulaan iyo gulf colaadeed oo xoogan ugu soo qaadi doonaan magaalada Baydhabo iyagoo ka faa'iideysanaya inta aan iyaga lagu soo duulin in ay iyagu duulaan qaadaan oo ay ka hortagaan waxaa la sheegayaa in duleedka magaalada Baydhabo uu ka socdo diyaar garowgii ugu xoogganaa oo ay doonayaan inay ku wareegaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee muhiimka ah hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidamo hor leh ay saacadba saacadda ka dambeysa ay ku biirayaan ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen taasi oo aadan madoobe culays weyn ku ah